daawadayaal waa Boorimo Channel aad uga barateen in idin soo gudbiyo hadba dhacdooyinka xiisaha leh marka taagan waxaan hadda ku soo qaadan doonaa COVID-19 ama coronavirus halka uu marayo iyada oo Yurub farabadan ku haya ayaa dalka Ingiriiska waxa uu kaga jiraa safka hore lamaanahan iyo laba ciyaal oo ay dhaleen oo 5 jir iyo 3 jir ayaa waxa meedkooda laga helay duleedka magaalada London gurigooda iyada oo booliiska magaalada ay sheegayaan in dilkani aanu ahayn mid dil la kaca amaba ay dadka dambeeyaan iyada oo loo aaneynayay inuu yahay isgo'doomintu ay sababtay inay 4 ruux ku nafwaayaan. Haddaba coronavirus ayaa waxa uu dunida oo dhan ku haya farabadan dalka Ingiriiska ayaa ah wadamada ay dhimashadiisu sii sare kacayso. Kambaniga online ku shaqeeya ee Tesco ayaa waxa uu kordhinayaa shaqaalihiisii isaga oo dalbaday in ka badan 2500 oo darawallo ah si uu dadka guryaha ugu geeyo adeegooda iyada oo isgo'doomin ballaaran ay ka jirto guud ahaan dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London ayaa waxaa soo ifbaxaya in dhimashadu sii kordhaysay iyadoo ilmo yar 13 jir saacadihii ugu dambeeyay uu ku geeriyooday xanuunkaasi. Waxa kale oo dib u dhac ku keenay arrinkan heshiiskii ka bixitaanka Ingiriisku ka baxay midowga Yurub ee Brexit taasoo dib u dhac ku keentay. Waxa kale oo uu saameyn ballaaran u geystay waddanka Talyaaniga oo isagoo ay dhimashadiisu kor u dhaaftay in ka badan 12,000 iyada oo baarlamaanka dalkaasina isu diyaarinayeen xasuuqii naasiga u geystay iyaga oo magdhow ka sugayay dalka Jarmalka.